magaalada Hargeysa sanadihii ugu dambeeyay waxa dhaqaale xumo darteed u xirmay dhowr iyo 10 wargeys oo halkaasi ka soo baxa kuwa kalena halka hadda ay qarka u saaran yihiin in ay joogsadaan sababaha keenay dhaqaale xumida ayaa lagu sheegay oo waliba inay si yaraadeen aqristayaasha wargeysyada iibsada ilaa iyo markii ay soo baxeen xarumaha telefishinada iyo waliba baraha bulshada oo warar badan dadku ay si fudud uga heli karaan waxaase jira caqabado kale oo siyaasadeed oo qayb ka ah suuq xumada wargeysyada ku soo habsatay sida uu ku waramayo waryahayaga magaalada Hargeysa Sadiq Maxamed Burmad makiinadan dhowr kun oo bogo wargeys ayaa lagu daabacayaa laakiin in yaroo kamida un baa la akhrisan doonaa waa ganacsi gabaabsi jooga halkan ayaa kamid ahayd meelaha bulshada wargeysada ay ku akhrisan jireen waqtiyada ay shaahaynayaan imikase waa qof iyo moobilkiisa waayeel tirayar ayuu weli ilwareed u yahay muuse waxa uu ahaa mulkiilaha wargeys shaqaynayay 15 sanadood hadda se xirmay qiimaha wargeyska aanu ku bilownay 97 ama 98 ayaa weli la siiyay maanta 2,000 shilin marka wixii soo baxayay iyo wixii gelayay baa xoog kala batay laba waxay si kaba raaciyay social media tiradooda oo badatay oo imka qaybo badan ka baxeen laftoodu qayb bay ka tahay dhaqankeena laftiisu marka horeba muu hayn mid suuq wanaagsan siinaya saxaafadda qoran caqabadaha muuse ka warramay waxa ay weli haystaan wargeysyada dhowrka ah ee sii shaqeeya halkani waa mid ka mid ah xarumaha wargeysyada ee magaalada Hargeysa hadda shaqaaluhu hawshii bay ku mashquulsan yihiin qoraysiyadii ay qaadeen iyo wararkii maanta ay duubeen ay ugu tala galeen in Britwell wargeyska ay ku soo baxaan saacadu ilaa 10kii imika laakiin xilliye ka dambeysay soo jeedaan oo meeshan hawl adag baa la qabtaa ee hawsha ay qabanayaan marka la eego haddana kama soo baxdo dhaqaale noloshooda iyo qoysaskooda shaqaalahan ku filan laakiin way dadaalayaan hoos u dhaca ku yimi wargeysyada sababteedu kuma ee ka tiifiyada batay iyo baraha bulshada ee la bartay siyaasadda dawladdu waa sabab kale oo wax weyn u dhintay waxa jiray mas'uuliyiin badan oo hay'adaha warbaahinta Soomaaliland oo xilligii xisbiga kulmiye mucaaradka ahaa taageerayaal u ahaa markii uu guuleystay waxa dhacday in mas'uuliyiin badan ay ku biireen hay'adaha dawladda oo xilal loo magacaabay taasi waxa ay saameyn toos ah ku yeelatay madax banaanidii hay'adaha warbaahineed ee ay mas'uul ka ahaayeen sababtoo ah qofkii marka xil dawladda looga magacaabo hay'adii warbaahineed ee uu gacanta ku hayayna waxay u gacan galaysaa ama la aragti noqonaysaa ama ugu yaraan ay ka gaabsanaysaa inay wararka dawladda ka dhanka ah qorto taasi waxay meesha ka saartay marka dhexdhexaadnimo badan oo hay'adaha warbaahinta ah haddii tayada qoraalkooda iyo xorriyad la'aanta warineed ee jirta ay sidan ku sii socoto waxay keeni kartaa in marka dambe dhammaanba wargeysyadu ay xirmaan Sadiq Maxamed Burmad BBC Hargeysa